بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisha ramadaan fadligeeda waxaa ka mid ah ilaahay ku gaar yeelay in qur'aanka kitaabka qur'aanka ah oo kalaamullaahi ah ilaahay xifdiyey looguna talagalay in adduunkan lagu maamulo ahna mucjizada ugu qiimo badan ee nebiyo la siiyey ilaahay wuxuu u doortay inuu bisha ramadaan soo dejiyo shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan qur'aanka lagu soo dejiyey dhexdeedaa qur'aanka la soo dejiyey qur'aanka keliya ma ahanee tawraat iyo injiil iyo zabuurna bisha ramadaan ayaa iyagana la soo dejiyey kutubtii ilaahay oo dhan oo qur-aanku ugu dambeeyey ayaa ilaahay u doortay in bisha ramadaan ay soo degaan oy hordhaco soo gaadhaan basharka iyo bini aadamka kitaabka qur-aanka waa kitaabka ilaahay hidaayadiisa uu lafdhabar uga dhigay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam saa darteed baa maalinta marka la soomana in la aqriya ay fiican tahay habeenkii ramadaan marka la joogana qiyaamkii iyo salaaddii la tukanayay qur-aanka lagu akhriyaa oo shahrulqur'aan loo yidhaahdaa saasaa shahrulqur'aan loo yidhaahdaa taasi waa fadliga koowaad ee bishu ay leedahay fadliga labaad oo isla qur-aankii la xidhiidha oo qur-aanka lagu sheegay waa bisha habeenka gaarka ahy ka soo degtay oo leylatulqadri la yidhaahdo ilaah yidhi inna anzalnaahu fii leylati alqadr leyladii sharafta badnayd baan soo dejinnay lafdulqadri laba macnoba waa xambaarsan yahay sharaf iyo makaano iyo qadar weyn habeen leh baa la soo dejiyey kaana waa aayaddan halka laga qaadanaya daahirka qaayaadkan ay yihiin waayo ilahay wuxuu ku tilmaamay khayrun min alfi shahr makaanada iyo darajada ay leedahay 1,000 bilood bay ka khayr badan tahay 1,000 bilood waa 83 sano iyo waxoogay dadka waxaa yarba cimriga inta gaadha habeenka leylatulqadriga ah markan ilaahay wuxuu ku magacaabay habeen barakaysan inay tahay inna anzalnaahu fii leylatin mubaaraka habeen barakaysan baan soo dejinnay waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay habeenkaas in malaa'igtu soo degayso habeenkii oo dhan wareegayso dadka salaamayso tanazzalu almalaa'ikatu waalruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xataa maطlaci alfajr waxaa kaloo habeenkaa ku tilmaamay leylatulqadriga ah in sanadkii waxa la xukumo la qaybiyo fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina inaa kunnaa mursiliin habeenkaa mar baan si gaara uga hadli doonaa sunanku ka mid yahay dadaal gaaroo la bixiye fadaa'isha bisha ramadaan inuu ka mid yahay weeye maxalu shaahidka halkan hadda aan u sheegnay ama aan u keennay fadliga saddexaad ay leedahay ilaahi subxaanahu wa tacaala habeen kasta oo bisha ramadaana dad baa naar laga xoreeyaa dad dembi galay oo naar mudan lahaa ayaa ilaahay khaladkay ku mudan lahaayeenna ka cafiyaa iyagana naarta ka xoreeya nabigaasa yidhi alay slam xadiidkii abi umaama walilaahi cutaqaa'u min annaari wadalika fii kulli leyla
habeen kasta oo bisha ramadaana dad dambeebay baa la cafiyaa naarna laga xoreeyaa 30 beri ama 29 beri ama habeen way mudan tahay inaad dadaasho si maruunaad ugu darmato kuwa ilaahay naarta ka xoreeyey ilaahayna ugu daro hanayna waafajiyo camalkii iyo asbaabtii laynagaga xoreyn lahaa waa fadliga saddexaad in kelmaddeennan ku soo qaadanayno fadliga afraadan ku soo qaadanayno albaabada khayrkoo dhanna waa la furaa albaabada sharkoo dhanna waa la xiraa saa darteed baa waxaa furma albaabada jannada waayo khayrka albaabadiisii baa furan jannada lagu gelayay sharka albaabadiisana waa la xiraa saa darteed bay albaabadii naartu xidhmayaan waayo waxaa xidhan sharkii lagu gelayey waana sida bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayra ka wariyeen tuftaxu abwaabu ljannati wa tuqlaqu abwaabu nnaari riwaayadka qaarkood waxay dhaheen in ilaahay uu soo diri doono mid yidhaahda yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari aqsir qofkii khayrka doonayow soo degdego kaalay albaabadii khayrka iyo jannadaa furan qofkii xumo iyo shar doonayow gaabso oo joog albaabadii sharka iyo naartu waa xidhan yihiin waa fadli ay leedahoon bilaha kale la wadaagin fadliga shanaad ay leedahay shayaadiintii dhibka badnaa ee khatarta badnaa baa la xidhxidhayaa bisha ramadaan waana sida bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayra ka wariyeen tusafadu fiiha shayaadiinu riwaayadka qaarkood baa qayb gaara inay shayaadiintu yihiin la xidhxidhaya sheegayo maradatu shayaadiin yidhi kuwooda madax adagee khibradda badanee ku mudhxay ku gaamuray dhuminta aadamaha iyo baadiyeenta saa darteed waxaad arkaysaa bisha ramadaan dadkii oo dhan oo masaajiddii imanaya masaajiddii oo buuxsamaysa dadka waa uun joogan ogow magaalada laakiin shayaadiintan khatarta ah ee gaamuray ee ku mudhxay dhuminta ee khatarta ahaa baa meelo ku wada hayay oo jidadka u wada taagnaa haddii lagu yidhi maradatu shayaadiin baa la xidhayaa kuwa aan kuwaa gaadhin sharka oo aan la xidhaynin baa jira iyadana waxaad ku garanaysaa sharka weli wuxuun baaqi ka yahay ee dadka in uun haba yaraadaane la luminayo oo la dhuminayo oo dariiqi ka leexanaya waxaa ka mid a fadaa'isha ay leedahay qofka maalinteeda sooma iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi kama fi lbukhaari wa muslim min xadiidi abi hurayra maalinteeda qofka sooma bishaas isagoo rumaysan in ilaahay ku waajib yeelay ilaahayna magac iyo ajir iyo weji wanaagsan kaga doonaya oo aan dadna istusaynin manfac duunyana ku raadinaynin dabcan dembina ka ilaalinaya markay saa noqonayso iimaanan waxtisaaban waa inaad ka ilaalisa waxyaabihii ajirkeeda baabi'inayay iimaanan waxtisaaban qofkii u sooma gufira lahu maa taqadama min danbih waxaa ka mida fadligeeda in ajirkiisa inta uu la eg yahay ilaahay uu qariyey oo isaga keliya uun og yahay kullu camali ibni aadama lahu ila asawm fa inahu lii wa ana ajzii bih anaa leh anana ka abaalmarinayo rabbi ku yidhi xadiidu lqudsigii fi lbukhaari wagayrihi ah fadligaa weyn inuu soomay qofka la qorayo xisaab la'aanna loo siinayo saa darteed bay culimmada qaar ku fasireen qowlahu tacaala inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa sabra ajirkoodii xisaab la'aan baa la siiyaadan sabirka in soomka loo jeedo shahru sabri la yidhaahdo oonkii gaajadii shahwadii laga tago
xumaatii la iska ilaaliyo dhan loo adkaysto loo sabro. marka sabirkii shiddada oo lagu sabro daacada mashaqadeedana waa ku yaalla, shahawaadka oo muxaramaadka oo laga sabrana waa ku yaalla. labadaa noocee sabirkaaba si aaday uga muuqdaan. waxaa ka mid a fadaaisha uu leeyahay qofka saa'imkiihii inuu dacwo mustajaaba leeyahay, gaar ahaan marka uu afurayo, sida xadiidkii bazaar wariyey abi saciid alkhudri iyo kayrkiiba. waxaan leeyahay xadidka abi saciid alkhudri ee bazaar iyo kayrkiiba wariyeen oo dacwo mustajaab uu leeyahay, wadalika cinda aliftaari, marka la afurayo ama wax yar ka hor ha noqoto ama kadib ha noqoto, xilla naftu ku maman tahay, ku mashquulsan tahay hungurigii iyadoo gaajaysan oo ooman, qofkii xusuusta ilaahay inuu baryo oo ducaysto, duca la aqbaluu leeyahay. dabcan waa adiga wax diida ducadii in laga aqbala haddaadan ku jirin, ama wax dembi iyo qaraaba goys aadan ilaahay weydiisanin. waxyaaba ducada in la aqbala reebaa jiree kuwaa haddaadan adigu ahayn ama ayna kuwaasi kaa hor istaagin oo adiga kaa dhacaya, ducadaada way mudan tahay in la aqbalo. asbaabta lagu aqbalana waa tahay. waxaa ka mid a soomka fadliguu leeyahay inuu qiyaamada marka la tago qofkii soomka badin jiray u shafaaco qaadayo, u ergeynayo, ilaahay ula hadlayo, ani dartay ha lagu caafiyo, dartay ha lagu daaye uu odhanayo. alqur'aanu wasiyaamu yashfacaani. soonku wuxuu odhan yaa rabbi manactuhu aطacaama waasharaab, cuntiyo cabbitaan uu u baahan yahay baan ka reebay, oon iyo gaajow aniga dartay u aqbalay. qur-aankuna wuxuu dhaha yaa rabbi manactuhu nawma, habeenkii buu hurdaan u diido anigu igu soo jeeday. soomku marka uu shafaaco qaadayaa qofkii soomay, si uu soomku ajirkaa iyo fadligaa u yeesho, sunankiisa iyo makruuhaadka in la ilaaliyo sunankoo lala yimaado, makruuhaadkii muxaramaadkana laga tago u baahan yahay, sida aan xalqad gaara kaga hadli doono. intaas baynu ku kaabinaynaa fadaa'ilka sawmka oo intaa ka badan. intaasaan tusaale ahaan kaga gaabsanaynaa. halkaasayna xalqaddeenna koobaad ku eg tahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.